السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طوضيال كسو دواذا برامج كان مانتا قدر وحاي موجسي تسالها نولي إنسانية ها إنسانية وقت يدن ضمبي وحال مريا هيرس كدا أرمها دين تلحيري waxaa dhimanaya fidradii saxda ahayd ee ilaahay bani aadamka ku abuuray heer waxa la gaaray qofka insaanka caadiga lagu dhaleeceeyo inuu qof caadi yahay micnaha waxshinimada iyo falxumada galbeedku halkaasi ayay gaadhay tan iyo intii ay bilaabmay koobka adduunku waxa ay soo tiriyay dhacdooyinka la yaabka leh ee muujinaya munaafiqnimada iyo kibirka galbeedka dhanka kale waxa ay muujisay dhacdadan inay weli dunida ku nool yihiin dad qiyam leh shuruuc leh oo aan lagu xadgudbi karin xulka Jarmalka oo hore aynu soo xusnay inay isku dayeen inay si uun u muujiyaan waxyaabihii la mamnuucay ee calaamadaha qomuluudka ayaa afka gacanta ku qabsaday kulankoodii u horeeyay ee ciyaaraan iyagoo leh wana la cabudiyay oo ma hadli karno iyo aragtiyeeda ma muujin karno hadda waa isla Jarmalkii Mas'uud Ozil ku eriyay maxaa dadka muslimiinta ee la leynayo aad ugu hadlaysaa Mas'uud Ozil waxa uu dhowr jeer ka hadlay arrin la xidhiidha muslimiinta Igoorka ee China lagu dhibaateynayo iyo marar dhowr ah oo ka hadlay Falastiin Jarmalka ayaa caydiyay isagoo leh waxaad ku xadgudubtay shuruucdeeda micnaha siyaasadda iyo isboorti in la isdhexgeliyo ma ogolin waxa sidoo kale la arkay wasiiradda arrimaha gudaha ee Jarmalka oo koobka ka soo qayb gashay oo muujinaysa calaamadaha qowmuluudka tani miyaanay ahayn laba wajiilinimo halkii u dambeysay muwaadiniinta qadariyaanka oo arrinkan ka falceliyay ayaa iyaguna dhankooda waxa ay ku dabaaldegeen sawirada laacibka Mas'uud Ozil waxa sidoo kale la arkay iyagoo calanka Falastiin kor u qaadaya taageerana u muujinaya dhanka kale dhacdadan koobka adduunka ee qadar lagu qabtay waxa ay muujisay sida ay ruuxda bulshada muslimiintu u nooshahay tiifiyada iyo idaacadaha Israa'iil laga leeyahay ee qadar u yimid si ay u baahiyaan dhacdadan ayaa la kulmay wax fajac iyo ama ka ku noqday kadib markii ay waayeen cid la hadasha oo ay wareystaan muuqaalkan waxa uu muujinayaa wariye iyo kameraman Israa'iili ah oo cid kasta iska dhaafayso yacni qofna uma soo istaagayo muuqaalkan kale ayaa isaguna muujinaya saxafi Israa'iili ah oo raba inuu wareysto wiilkan u dhashay qadar balse markii uu ogaaday inuu TV Israa'iili yahay waa uu iskaga dhaqaaqay sidoo kale waxa aad u baahay muuqaalkan waa saxafi Israa'iili ah makhaayadii ayaa laga soo eriyay dhammaan sawiradii iyo muuqaaladii aan qadar ka duubay mulkiilihii maqaayadda ayaa telefoonkayga ka saaray tagsiilihii waa uu diiday inaanu la macaamilno markii uu ogaaday inaan Israa'iil ka soo jeedo mana awoodo inaan calaamadda TV-ga mikrofoonkayga saaro waa hadaladii uu sheegay saxafigaasi sidoo kale waxaa jira muuqaalo muujinaya muwaadiniin qadariyiin iyo Sacuudiyaan ah oo diidaya inay la hadlaan wariyaasha Israa'iil kuna hal celinaya inay halkan qadar tahay qof Yahuudi ahna aan lagu soo dhaweynayn arinta kale ee xiisaha badan ayaa ah in dadka kala duwan ee caalamka ka kala yimi ay la fajacsan yihiin codka quruxda badan ee aadaanka isla markaana markasta oo aadaanka la maqlo ay wada istaagayaan dhanka masaajidkana u soo dhawaanayaan iyaga oo muuqaalo ka duubanaya sidoo kale waxaa socota dacwadda islaamka oo qof kasta oo muslim ah ka qayb qaadanayo gaar ahaan culimada waaweyn waxa la arkay qoysas ka soo jeeda Latin America oo diinta islaamka qaadanaya iyo sidii aan hore u soo sheegnay waxa la arkay gabdho isku dayay inay xijaabtaan oo ay tijaabiyaan asturnaanta diinta ay nafartay dhinacyada kale waxaa saameyn aad u weyn yeeshay toddobaadkii u dambeeyay shaqaalaha Kenyaanka ee qadar loo keenay inay ka shaqeeyaan goobaha ciyaaraha lagu qabanayo wiil dhalinyar Kenyaan ah ayaa muuqaaladiisu aad u baaheen maalmihii la soo dhaafay kaasi oo shaqadiisu ahayd inuu dadka u tilmaamo goobta tareenka matrahu u marayo ama goobta laga raacayo tareenka dhulka hoostiisa mara waxyaabaha aadka loola dhacay ayaa ahaa codkiisa marka uu ku dhawaaqayo kelmadaha metro this way tareenka matraha halkan ayaa laga raacayaa ugu dambeyntii dhacdadan koobka adduunka dhinac kasta oo ka eegtaba waxa ay muujisay waxyaabo badan oo qarsoona hadday noqoto cunfiga iyo carada ay galbeedku hayaan cid kasta oo muslim sheegata waliba laga yaabo in dad badan ay laba wajiilinimadaasi ku kadsoomaan sidoo kale waxaa dareemaysaa in arrintani ay muujisay in islaamku yahay qiyam akhlaaq nabadgelyo iyo wanaag waxaa jira kumanaan aan weligood arag meel islaam lagu hayo
keliya barobagandada uu galbeedku ka faafiyana maqli jiray sida islaamku u argagixiso ama waxyaabaha la midka ah. Waxaa laga yaabaa adduunyada meelaha qaarkood qofku marka uu islaam maqlaba inuu u malaynayo argagixiso ama ereyadaasi ay maskaxdiisa ku soo dhacayaan, balse arrintaani waxyaabahaasi oo dhan ayaa meesha ka saartay, waxaana ay xaqiijisay waxa islaamka dhabta ahi uu yahay. Mowduuceenan intaas ayaa uu ku eegyahay. fadlan kanaalka hadaad ku cusub tahay ku soo biir, muuqaalkana like saar, siina share garee si uu u gaadho saaxiibo kale oo danaynaya inay mowduucyada noocan la socdaan. mahadsanid.